xukuumaddii 4 sano ee nidaamka farmaajo ee ku soo kufay 1 May baarlamaanka hortiisa sidaad aragteen kadib markii uu dalkii Soomaaliya ku soo dhameeyay inuu difaac ka galo luuqluuqyada Marinaayo iyo Siigaale iyo wax la mida waxaan 4 sano uga soo horjeeday waxa aad maanta aragteen in badan oo idin kamid ah waxa aan aragno idin sheegayo waxa kamid ah dalka Soomaaliya sidaas loogu wado waxa dhacay baarlamaanka Soomaaliya waa qaybsan yahay ina ka wareysaan in kala ma ogiye aqalka sare iyo golaha shacabka aqalka sare farmaajo lama macaamilo ma salaamo salaan kama qaado waa qaybsan yahay golaha shacabkana wuxuu ka dhigtay meel oo timbara ku dhufsado oo in yaro aniga aan kamid ah iska diida ma ogiye intii kalena ay maalin walba sacbiyaan waxaad dhageysanayseen khudbad aan ka jeediyo baarlamaanka oo leeyahay jidkan aan qaadayno waa khaldan yahay yaanaan qaadin ilmaade reeyalo waa la iga diiday markii extensionki soo waayay oo darbiga madaxa lagu soo dhuftay daraad yaa farmaajo yimid markaas wuxuu yiri wixii waa socon waayeen balaayadna kiciseen aboor iyo quraanjaadna nagu jafteen wixina ka laabataan rabnaa markaas breegu qaatay moogtaa intii la discuss gareynay ano point of order taaga inaad aragteen waa laga yaabo point of order ku waxa weeye arrintan inaan ka hadlaan rabaa way ee hadal la iga sii markaas waxaan rabaa inaan idhaa khudbada ninkan oo jeediyay deelqaaf badan iyo caay baarlamaanka u geystaa ku jirtee aan iska saxno adduunka waa lagu laabtaa waa la qoraa khudbadahaas laa'iq uma ahayn meeshaan in laga yiraahdo qodobkaas ma ahayn inaad baarlamaanka kula hadasho ilaa madaxweynaha baarlamaanka doortay baarlamaanka ka sareeya waa sidii maalinta hore la iiga dhaga diiday yaa haddana la iigu dhaga diido waxa la yiri maya madaxweynihii wuxuu yiri adiga inooda waayo meelaha ku qancay lama arka miya 17 September loo laabanaya war 17 September in loo laabto farmaajo baryo loogama keenin maalinta horena waa idin sharxay haddana waa sharaxaya aan sharaxo fursad halaysi waa la iga diiday waa aniga meesha uu tilmaamayay iyo waxa qofkii lahaa hal meel u istaagaa ninkan meeshii banaanka waa aniga u istaago ku akhriyay wixii ay leeyahay baarlamaanka sidaas markuu u qaybsan yahay ninkan 4 sano dalka soo joogay farmaajo la yiraahdo wuxuu sidoo kale u qaybiyay dowlad goboleedyadii federal systemkii uu qaybiyay waa ogeydeen dhul samareeb asaga ka soo tagay teendadii asaga ka soo baxay asaga kala qaybiyay asaga garbaa isugu dhuftay waxa markii dambe kala qaybinta ku timid asaga iyo ra'iisul wasaarihii inta markii u dambeeyay ra'iisul wasaarihii uu yiraahdo aniga extension kama shaqeyn kara raaliga ahaw يعني waxay daliil kuugu tahay heerka qaybsanaanta dalka Soomaaliya uu gaaray waxa uu qaybiyay oo uu kala qaybiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddo dheer soo socotay sambolo sharaxay hadaad dhageysateen garowga isagoo jooga muddo dheer ayay soo socotay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in la qaybiyo laakiin dadka waa fahamsiin weyn waa sheegaynay maalinta bariire dadka lagu weeraray hadaa xasuusateen iyo adii kale oo la lahay dadka la weeraray waa argagixis online ma ahana waa dadkeena kuwa badan oo waxa ogahay anaga aqraabano markaas commentiga hadda idin soo masawiro la heli karo oo maxaa dawladda u dhibaysaa waxaana la dilay dadaan aniga xildhibaan u ahay ogow ayagana ana xildhibaan u ah oo shaqadii aan qaban lahaa marka iyo mas'uuliyadii aan qaban lahaaba marar badan oo kamid ah dadku ma yaqaaniin mas'uuliyadda aad u hayso yaani waxaan ka wadaa marka kala qaybsanaan ciidankiya timid fashala yimid Soomaha waxa yimid يعني وإذا شاقني إلى مركز دم بهذا ده جدي جمالية ده فيري الرماه ما سقى سيدا إن من كانوا قريان وهلك حكومة جدي جمالية ده برلمان ككلا درتي ولقيت مدعين لبعتنك سنة ولا صار عفي ولقيت مدعين جدي جمالية ده لكلا درو هذا كور هيساني هديك كلام لعقته دبعت المليون كله أيو سوق قري أوديتر جنرالكو إني قصنا ده كم غنتهاي إلى مركز دمر لجو إنكريو ليري واحد مشي كرتيده كلابو هذا أنا وحي مرة يسمعها إنه وزير المالية دليل يسق حدا يسلا جوجان واحد ثاني دي شيء جايو وحاكوسو رمادي سياسة الرماه الدبدة أو دلك الصومالية أو نقطي مشروع ير أو فرماجة سقولية أو مركو قفكو كحنا قبا ويرادو وعدو صوماليات وأوجد درات كينيا السفارة اللي قصوا عليه ما أنت ولو عليا ليري سببته متقنين قطر تمد قطر نوا صاحب الطعام لعقته يرو كل دقائق فرماج عدة صوصي يسوي كي ليه شيء ليري ويهير فينش أو عداودي أو نك حواي مجلسي دباهي أو لها وعدوجين إلهي رسول يسكفرت يعني simply فيري مركا عقلك ضدك مركي الوقوع عيار أنا إلهي أمرك دبك أن قبا وحويا دتك جعل إن دتك عقل جود الوقوع يا رمى
caqligooda iyo mustawahooda in lala hadlaan jeclaha dadka si ay dadku kor ugu kacaan laakiin runtii nidaamkan 4 sano la soo dhaafay cuquusha dadku ku ciyaar waa la jiheenayaa marka dadka waxa arkaysaa kule Kenya waa cadow Ethiopia waa jecelna farmaajo hadda heerkaas uu keenay farmaajo wuxuu keenay in diyaaradda Addis Ababa aadaysan aysan dhib lahayn diyaaradda Dubai u socota oo dadka ganacsatada Soomaaliyeed wax dhan ku xiran yihiin qofkii raaca la yiraahdo oo Dubai imaaraad u shaqeeya dan uu kaleey dalka Soomaaliya wuxuu geliyay xaaladda maanta uu taagan yahay murashaxiintii in la weeraro oo guriyooda lagu weeraro madaxweynayaasha xilka asaga ku weeraray lagu weeraro qof walba dhashiike iyo baasuuke iyo si ugu wadan lahaa uu ka fakaro meeshii berigii hore laga fakaraayay si dalkan aan u hormarisaa intee gaarsiisa xukunka markaan farmaajo ku wareejinay waxaa laga fakaraayay resource sharing waxay leeyahay laga hadlayo shidaalka see loola soo baxa khayrka see loo qaybsada kalluunka maxaa leedahay maxaad lahayn alla maray waxaa la rabaa inaad qiimeyn aad samayn kartaan waxaa la rabaa inaan wacyigiina iyo musawihiina aan lagu ciyaarin waxaa la rabaa inaan runta dhageysan kartaan kana jawaabi kartaan